dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan culus waxay ka qaadatay dhanka Itoobiya iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in xukuumadda Abiy Ahmed la ogaaday in ay hoosta ka riixayso maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya khilaafka kala dhex jira dhanka iyo dowladda federaalka. Itoobiya ayaa qaaday maalmihii u dambeeyay dhowr tallaabo oo la xiriira sida in Cabdicasiis Laftagareen diyaarad qaas ah laga soo saaray Itoobiya lana geeyay deegaanada Koonfur Galbeed. tan kale waa in ciidanka Itoobiyaanka ay si degdeg ah u soo afjareen tababarkii ay siinayeen ciidamo ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo in muddo ah ku xariisnaa xiriyo ku yaala dhanka iyo magaalada Baydhabo gudaheeda. warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in dowladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Cabdicasiis Laftagareen maalmihii u dambeeyay dunta siyaasadeed ee isku xiranayeen. taasi waxay keentay in dowladda federaalku ay arintaasi aad uga carooto. Laftagareen oo ku dhawaaqay guddi maamulaya dhanka doorashada Koonfur Galbeed ayaa wararka waxay tilmaamayaan in xaaladdu ay tahay mid aad u halis badan marka la eego arrimaha dhanka siyaasadda ee dowladda federaalka. qorshaha ay damacsan tahay iyo in Itoobiya ay weli faragelin toos ah ku hayso arrimaha siyaasadeed ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed. mas'uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku waramay in maalmihii u dambeeyay dowladdu ay waday abaabul xooggan oo Itoobiya ay kala hadlayso faragelinta tooska ah iyo mid dadban ee Soomaaliya ku hayso. ha yeeshee dhowr jeer Addis Ababa ay bilowday ama qaaday tallaabooyin xooggan oo ay ku muujinayso in ay ku soo dhaweynayso wax walba oo ku aadan midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, balse hoos ay ka xaganisay. arrintaas waxay keentay in la soo dedejiyo go'aanka culus ee dowladda federaalka Soomaaliya. ciidanka Koonfur Galbeed ee dagaalamaya ayaa wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in ciidankaas hubka ay haystaan iyo qaabka ay u dagaalamayaan farsamooyinka kala duwan in Itoobiya ay qayb weyn ka qaadatay. taasi waxay abuurtay in xaaladdan ay keento shaki weyn oo ku saabsan arrimahan hadda jira. tiyo jirto ayaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen inay wadaan qorshe weyn oo ay isaga difaacayaan ciidanka federaalka, xubnaha mucaaradka iyo cid walba oo isku dayda in maamulkaas uu tallaab ka qaadi waayo. waana mid keentay in Itoobiyaanka ay sidoo kale tababar degdeg ah ay siiyaan saraakiil iyo xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo ugu dambeyn laga soo saaray xerihii ay ku xariisnaayeen. guddiga doorashada marka aynu dib ugu laabano waxa uu la mid yahay guddigii doorasho Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo ku helay xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland, walow markii dambe xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qaabileen in uu yahay madaxweynaha Jubbaland. ha yeeshee mas'uuliyiinta dowladda qaarkood ayaa weli ka meermeeraya inay afkooda soo mariyaan in madaxweynaha Jubbaland looga yeero Axmed Madoobe. Laftagareen oo shaxdaas wax badan ka fahmay ayaa waxa uu qaaday tallaabo xooggan, isagoona ugu dambeyn shaaciyay guddi doorasho oo sheekadu idinka dhigaya mid kala tuura. Itoobiya faragelinteeda haddii aynu dib ugu laabano, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya ayaa la sheegay in ay go'aan ku gaareen in aanay warbaahintu ka hadlin go'aan walba ama eed walba oo dhankooda loo jeediyo, taasoo keenaysa in xaaladaha siyaasadeed iyo xaddiga awoodeed marka la eego in xaaladdu aanay ahayn mid ku habboon xilliga marka la eego deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Itoobiya laba gobol oo Koonfur Galbeed ka mid ah waa Bay iyo Bakool waxay la wadaagtaa xuduud beenaad. ciidankooda ugu badan Itoobiya marka la eego dhanka Soomaaliya askarta ka joogta ayaa halkaasi ku sugan. waxay taasi abuurtay in xaaladda siyaasadeed ay noqoto mid si guud iyo si gaar ahaaneed diiradda ay u saarto arrimaha ka jira dhanka Soomaaliya. horey waxay gobolka Gedo Itoobiyaanku ugu yeesheen dhaqdhaqaaqyo guud oo dhanka siyaasadda, weliba mar ayay garab siiyeen ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland oo xilligaas la dagaalamay ciidanka federaalka, deegaanada qaarkoodna ciidanka federaalka loogu awood badiyay. Itoobiya marka la eego dhanka siyaasadda Soomaaliya waxay faragelin ku haysaa tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxay in muddo ah Itoobiyaanku ay ka shaqeynayeen inay helaan saraakiil, mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan oo dhankooda u janjeera, taas oo keeni karta in Addis Ababa mar walba danaheeda gaarka Soomaaliya uu fulo. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dowladdu ay markaan qaadi doonto tallaabtii ugu adkeyd oo ay ku kala tagayaan Itoobiya.
walow dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegeen in arrintaas aanay suurgal noqon karin marka laga tusaale qaato xadgudubkii dhanka badda isku dayo kala duwan Itoobiya kol hore ay sameysay iyo in xukuumadda Abiy Ahmed ay daadaasi ka wado gudaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliyana luuqad aad u jircan ay kula hadlayso waana mid keentay in Itoobiyaanka mar walba xaaladda Soomaaliya siyaasad ahaan si toos ah ay u farageliyaan ciidanka Itoobiyaanku ay tababareen koonfur galbeed ama dhanka federaalka ha jiraan ama Jubbaland ayaa la sheegay in ay yihiin ciidamo si gaar ah Itoobiya mustaqbalka dhow ay ugu tashanayso marka la eego aragtida siyaasadeed ee dhanka Soomaaliya waa mid keentay in lagu dhaliilo mas'uuliyiinta Soomaalida in ciidamadoodu ay u tababaraan wadan colaad muddo fog kala dhaxaysa xaaladooda siyaasadeedna aan xasileen waa Itoobiya taasoo keentay in mas'uuliyiinta dowladda federaalka markaan ay diiradda saaraan qaabka ugu adag ama ugu fudud ee la xiriira arrimahaasi wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta Xuraansi ku daaw